haddii aad ku lugayso Doromanika ama waddooyinka Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya, kama ahan wax aan caadi ahayn inaad ku aragto dad waddada fadhiya isla markaana wada cunaya hilibka ceeriin. Sidoo kale waa caado si weyn loo muujiyo kolka ay jiraan xafladaha sida arooska, waxaana sida caadiga ah ee dad badan oo Itoobiyaan ah si joogto ah u quutaan hilibka ceeriin ee lo'da ama ariga. Inta badan waqooyiga iyo bartamaha dalkan iyo xitaa koonfurta waxaa lagu arkaa dad aad u jecel cunidda hilibka ceeriin, waxayna dadka ajnabiga ah ee booqda aad ula yaabaan bani aadam si joogto ah u quuta hilibka ceeriin. Waa cuntada ay ugu jecel yihiin, waxayna u samaystaan qaabab kala duwan. Cuntada hilibka ceeriin ee ugu caansan Itoobiyana waxaa lagu magacaabaa kitfo. Waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan Itoobiya, waxaana laga sameeyaa hilibka lo'da oo ceeriin ah isla markaana la shiiday iyo basbaaska budada ah ee loo yaqaano mitmita. Cuntada kitfo waxaa inta badan lagu iibiyaa canjeero Itoobiyaanka, waxaana jirta mid ka duwan cuntadan oo laga cuno Itoobiya iyo Eritrea, waxaana lagu magacaabaa gorit gorit. Waana mid ka sahlan cuntada kitfo ee hilibkeeda la shiido. Canjeero Itoobiyaanka marka laga yimaado, sidoo kale waxay hilibka ceeriin ku cunaan sinafich oo laga sameeyo waxyaabo kala duwan sida miraha qardalka, misirta cagaaran, filfil, liin iyo saliid saytuun. Waxayna inta badan dadka Itoobiyaanka ah jecel yihiin cuntooyinka waxyaabaha kulul lagu daro sida basbaaska. Hilibka laga cuno dalkan waa mid kala duwan, wuxuuna u kala baxaa laba qaybood: qayb Kirishtaanka cunaan iyo qayb Muslimiinta iibsadaan, waxayna tani ka jirtaa xitaa hoteelada qaar. Goobaha lagu iibiyo hilibka ceeriin ee cunaan Kirishtaanka dalkan waxba kama iibsadaan Muslimiinta, oo waxay qaas u tahay kuwa Kirishtaanka ah, waxayna Muslimiintu qiimeeyaan cidda gowracday neefka ay hilibkiisa doonayaan. Dadka Itoobiyaanka ah ee cuna hilibka ceeriin marka la weydiiyo sababta ay u cunaan, waxay ku jawaabaan oo ay ku cabbiraan aragtiyo kala duwan. Qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu caafimaadkooda kor u qaadayo, isla markaana faa'iido weyn ay ku qabaan, ayagoona soo hadal qaada da'da waalidkood iyo inta sano ay cunayeen hilibka ceeriin. Qaarkood waxay leeyihiin waa cunto dhadhan wacan, inkastoo dadka ajnabiga ah ee tijaabiyey aad uga deeriyeen. Sidoo kale qaarkood waxay ku sheegaan sababta ay u cunaan in ay farxad ka helaan isla markaana waqti kula qaataan asxaabtooda. Dhanka kale, waa dad qirsan in lagu kalifay inay ka caado dhigtaan cunista hilibka ceeriin, waxayna tilmaamaan in awoowayaashood lagu kalifay kuna qasbanaadeen mar ay ku jireen dagaal ay ku difaacanayeen kaniisadahooda. Wuxuu ahaa dagaal ba'an oo Kirishtaanka dalkan lagu qaaday, isla markaana ku kalifay inay dab shidan waayaan ayagoo ka baqaya in la arko qiiqa iyo holaca ka baxaya dabka ay hilibka ku karsanayaan. Tani ayaana ku qasabtay inay cunaan hilibka asigoo ceeriin ah. Sida taariikhda ku xusan, waxaa dagaaladan ku qaaday waa Soomaalidii qarnigii 16aad ee uu hogaaminayay Halil Axmed Gurey, oo ahaa imaam, hogaamiye, abaanduule, sheekh iyo suldaankii boqortooyadii Adal, taasoo ku duushay, jebisay, kana qabsatay dhul badan dowladdii ka talin jirtay Abyssinia. Dabcan Itoobiyaanka qaarkood taariikhdani waa ay qariyaan oo si toos ah uma dhahaan waxaana baday hilibka ceeriin waa Soomaali, balse waxay dhahaan waa Muslimiin kusoo duushay dhulkeena iyo kaniisadaheena. Dadka Itoobiyaanka waa kuwa si weyn u cuna hilibka ceeriin, weliba iyadoo looga digay khataraha caafimaad ee ka dhalan kara, maadaama ay u nuglaanayaan bakteeriyada Salmonella iyo E. coli oo baaba'aan marka la kariyo hilibka. Dhakhaatiir uu ka mid yahay Dr. Akaze waxay sheegaan in dadka hilibka ceeriin cuna ay halis ugu jiraan cudurrada aan la isku gudbin sida faaliga iyo cudurrada wadnaha ku dhaca. Dhanka kale, maqaayadda Yilma ee ah midda ugu caansan ee Addis Ababa ku taala ee hilibka ceeriin laga cuno, waxay ku doodaa inay iibiso hilib fresh ah oo ay koontarosho wasaaradda beeraha ee Itoobiya. Itoobiya oo keliya ma ahan halka laga cuno hilibka ceeriin, ee waa cunto dhaqameed siyaabo kala duwan uga jirta caalamka. Cuntooyinka ka kooban hilibka ceeriin ee laga cuno caalamka waxaa ka mid ah cunto dhaqameedda Japan laga cuno ee sushi, waxayna ka kooban tahay hilib kalluun oo ceeriin ah, bariis, iyo dhir yaryar oo ka baxda badda gunteeda. Sidoo kale waxaa jirta cunto Talyaani ah oo lagu magacaabo carpaccio. Waxay noqon kartaa hilib ceeriin oo kalluun ah ama hilib ceeriin oo lo' ah, waxaana loo jarjaraa si khafiif ah ama dhuudhuuban. Waa ay badan yihiin cuntooyinka hilibka ceeriin ah. Waxaa jirta cunto laga cuno Jarmalka, Poland iyo Belgium oo lagu magacaabo meat. Inta badan cuntadana waxaa laga sameeyaa hilib doofaar oo ceeriin ah, waxaana sidoo kale marmar laga sameeyaa hilibka lo'da iyadoo lagu darayo filfil, cusbo iyo sinjibiil. Cuntooyinka kale ee hilibka ceeriin ah ee dunida laga cuno waa Khoi Soi oo Thailand laga cuno, Osinwos oo asal ahaan kasoo jeeda magaalada Amsterdam,
iyo tartar oo ah midda ugu caansan dunida marka la eego cuntooyinka hilibka ceeriin ah, waxayna u kala baxdaa noocyo kala duwan. Waxaana laga sameeyaa hilibka lo'da ama hilibka fardaha, waxaana hilibka la raaciyaa oo lagu daraa waxyaabo kala duwan sida ukun aan la dubin ama la karin.